waxaa jira caadooyin aad ugu daran caafimaadka oo haddana aynu dhammaanteenba samayno kuwaasi oo cimri degdeg inagu sababi kara waan hubaa in aad yaabi doonto markaad ogaato ku soo dhowow barnaamijka ilaasha caafimaadkaaga marka ay timaado su'aasha ah maxaa caafimaadkeenna u wanaagsan dad ayaa muhiimadda saara cuntada qaar kale ayaa iyaguna muhiimadda siiya jimicsiga si kastoo ay ahaataba aad bay u fududahay inaad kala saarto waxa caafimaadka u fiican iyo waxaan u fiicnayn inkastoo ay iska caddahay caadooyinka ay ka midka yihiin cunitaanka cunto aan caafimaad qabin iyo cabitaanka sigaarku ay cimri degdeg kugu sababayaan haddana waxaa jira kuwo kale oo badan oo aanad filanaynin ila soco si aad u ogaato kuwa ay yihiin qodobka koowaad hurdada oo aanad helin intii loo baahnaa hurdo fiican oo aad habeenkii seexataa waxa ay kaa dhigtaa mid nashaad ah oo wax caajis ahay ka muuqanin nolol maalmeedkiisana si wanaagsan u qabsada aamin ama ha aaminin ee hurdada oo kugu yaraataa waxay keenaysaa cimri degdeg oo u keenaysaa siyaabo kala duwan cilmi baadhis lagu sameeyey jaamacadda Harvard ayaa sheegaysa in hurdada ka yar habeenkii 5 saacadood ay dhimashada soo dedejiso 15%. arrintani aad uma yaab badna ee waxaa xaqiiq ah in hurdayaridu caafimaadka guud ahaanba dhibaatayso waxaa kale oo la xaqiijiyey in hurdayaridu ku hogaamin karto xanuunada kala ah macaanka wadna xanuunka dhiigkarka habdhiska difaaca oo daciifa iyo mooraalkaaga oo isbedela qodobka labaad fadhiga faraha badan fadhiga badan ayaa aad looga dayrinayaa marka ay arrintu taagan tahay caafimaad isagoo soo horkici kara xanuuno badan haddaba fadhiga ka badan 3 saacadood oo xidhiidh ah ayay dhakhaatiirtu leeyihiin waxa uu soo dedejin karaa hawlgabidda iyo dhimashada qofka qodobka saddexaad daawashada badan ee TV-ga in badan waalidkaagu ma kugu canaanteen daawashada badan ee TV-ga haa way kaa saxsan yihiin oo wanaag bay kula rabaan oo sidee xaqiiqdu waa in daawashada badan ee TV-gu tahay caado xun isla markaasina noloshaada soo koobi karta cilmi baadhis ay samaysay jaamacadda Harvard ayaa lagu sheegay in xanuuno dhowr ah oo nolosha halis ku ahi xidhiidh la leeyihiin daawashada badan ee TV-ga qodobka afraad dad la dhaqan yaraanta mid walba midkii hore ka daran haddii aad ahayd qof xidhxidhan dadkana aan dhex gelin haddaba khatar ayaad ku jirtaa maanta wixii ka dambeeya waxaad ogaataa in maxbuusidda aad naftaada ku maxbuustay qolfoofkaaga dhexdiisu khatar kugu tahay ayna noloshaada diiqad iyo cimri degdeg gelin karto qodobka shanaad shaqayarida shaqada jidhka ayaa u baahan si xubnahaaga oo dhammi u ahaadaan kuwo caafimaad qaba waxaa loo baahan yahay in ay shaqeeyaan mar kasta oo xubin jidhkaaga ka mid ahay shaqo gabto waa mar kasta oo aad daciifnimo iyo liidasho dareento haddaba isku day inaad shaqayso qodobka lixaad isticmaalka badan ee moobilka hayaay waa laysa soo galay way fiican tahay inaad tiknoolajiga la socoto telefoonkaagana isticmaasho una adeegsato baahiyahaaga balse u adeegsiga sida xaddhaafka ah ayaa iyana dhibkeeda leh waxaa cilmi baadhis lagu ogaaday dadka ku hadla telefoonka maalintii ka badan dhowr saacadood ay 50% u nugul yihiin kansarka ku dhaca maskaxda telefoonka casriga ahi waa maskaxdii dunidoo malaasan iyo aalad faa'iido leh si la mid ah faa'iidadeeda dhibaatadeedana leh haddii aad xaddhaaf u adeegsato caafimaadkaagana halis ayay gelin kartaa aaladani aynu ka digtoonaano qodobada aan soo sheegay si aynu caafimaadkeenna u ilaashanno haddii aanad ka mid ahayn channelka Somali College subscribe saar jalaskana furo si aanay kuu dhaafin barnaamijyada aan sii deyno mahadsanid